Soomaali waqtigan isdilin waan ka murugoonde isaaq iyo dhulbahanto waqcada waan ka murugoonde walaalaha iswiiqiya dhibtaba waan ka murugoonde war xun oo ka soo yeera soo waan ka murugoonde bismillaah waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inta kadib waxaan u rajaynayaa nabad wada noolaansho iyo wada jir aan nusqaamin oo dhicisoobin kadib waxaan dhaliilayaa cid walba oo ku eedeysan qalalaasaha dhibaatada xadgudubka khasabka hagrashada iyo dhiiga dadka daga gobolada Soolsanaag iyo Cayn ma joogna adduunkii jajuubka oo xitaa maantay toole ninka aad khasbayso hadii aad laga dood ka adkaato guuldarro baa ku curanaysa ee wax faa'iido ama aadan haleelin mar walba oo isfahan darrada iyo xal la'aantu ay dheeraatana dhibta baa daba dheeraanaysa cida maanta ama maamulka maanta doonaya inuu cid kale aragtidiisa ku khasbana meel fog ayuu soo maraya waxaan leeyahay baraaruga Allah kugu toosiyo inta kadib waxaad ogaataa mar walba is leedahay cid dulmi ama talaabo dhib ah horay u qaad laga maarmaan inay tahay niyada ku qabato aayada 140aad ee suuratu Imraan ayaamaha wareegaya ee dadka dhaxdooda ku meereysanaya xilligan la joogo ee adag sitimaan isbuucta ka daahimayaan ilmi riqsigeeda ayaad ku mudan kartaa oo gondiisa jiifsan kartaa qofkii aad dulmiday qofkii aad dhibaataysay qofkii aad hagratay qofka dhiigiisa ku xad gudubtay min aad maanta balanbalisay gurigiisii walaalkiis xaaskiisii hooyadiis hadii adigu maxaad ka filanaysaa oo waliba kaskaaga cad maanta ku dulmiday Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa gacan la barkan alla og adoo ka waaqsan kara marka dhibaato inaad dabka horiso waa laga fiican yahay waxaad mar kale uu qof walba niyada ku haya oo uu xasuusan yahay inay maalin adag ku soo food leedahay oo aan laga baaqsanin oo xaq ah bal mar kale waxa xasuusataan aayadaha 10aad 11aad 12aad 13aad iyo 14aad ee suuratu Macaarij maalin waxay manaysaa uu qofku jeclaan lahaa inuu badkiisa isku furto xaaskiisa walaalkii qaraabadiisa iyo wax arlada ku nool oo dhan laakiin aysan suurtagal noqonayn maalintaas iyo ogaalkaas qof ay wax ka bedeli weyday ismalihi tixdaada iyo tiraaftaada ayaa wax ka bedelaysa laakiin xaq isaaran baan leeyahay iska rid xaq isaaran baan gudanaya waxaad ogaataa adduunkii khasabka iyo jajuubka qofka wax looga dhaadhicin jiray inaanan joogin ee xal iyo wada hadal iyo raalli in la iska noqdo ay wax walba iyo guul walba ku xiran tahay dhibaato aad ka baaqan kartana waa laga qurux badan yahay inaad u maaragtay xaydxaydato du garwaaxidsato wanaagsanaan lahayda qof walba oo kursi noogu fadhiya inuu xisaabtiisa qiyaamaha u cabsado laakiin ma suurtagelayso oo waxaan ognahay adduunka maanta aan joogno xaaladdu meeshay marayso iyo dadka siday qaflad ugu sugan yihiin taas mid gud baan leeyahay xaq Ilaahay hayna waafajiyo dulmigana inta ka baaqan karna aan ka baaqano ciidamada mid baan leeyahay ninka horta lagu soo duulay dawaan dhiiri gelinayo isdifaac baan leeyahay oo diinteena ayaa bayna amraysa cidii nafteeda maalkeeda iyo sharafkeedaba lagu soo xadgudbo inay isdifaacdo laakiin ninkii soo duulay waxaan ku leeyahay garashada adar ka abaaroobin xilliga biri markii aad dhimato afeef ku noqon mayso iyo waxaan ku baxsasho midna oo ku badbaadi maysid hebel baa soo diray iyo hebel baa qori ii dhibay iyo hebel amarkiisan ku socday intay goor taayoodan si xun u dhimanin oo si xun Ilaahay subhanahu wa ta'ala kula xisaabtaminin ka fakar xisaabtaada adduun lees dira qof walba maskaxdiisa inuu ku socdo ay wacantaan joogna adduun lees dira ma joogno madaxdeena dadka kuraasta ugu fadhiyay waxaad moodaa garashadii cilmiga in Ilaahay ka abaaray Ilaahay wuxuu loo manisbeeyo laakiin xaaladdu meel xun bay maraysaa waxaan Eebbe subhanahu wa ta'ala u weydiinayaa roob raxmad iyo dhimrin iyo damiir iyo aqli leh inuu maskaxdooda ku maasheeyo si ay maatada ugu naxariistaan oo wadanka ugu naxariistaan nabad baa naas la nuugale abaan hore wuxuu yiri nabadu gaal iyo islaamba wuu gogol nasteexad halkan gabay baan rabaa inaan ku soo gudbiyo gabaygaas oo markasta aan nabad iyo waxaan ku iraahday wanaag iyo wada jir ku baaqayo wuxuu leeyahay Ingiriis dadkii waabiye waaye diriirayay waxaan ognahay reer Laascaanood waxa maanta toole ama gobolada Soolsanaag iyo Cayn waxa maanta ba halka dhigo oo dadkii ama waxaan ku iraahday wadadii ay u qalmeen ka reebay inay tahay Soomaali jacayl wadaniyad iyo wada jir ay intaas u halgamayeen oo ilaa intay jireenba ay raadinayeen waa gaari doontaan guusha insha Allah wax yar baan idin ka xiga hadaalinina idin leeyahay
ingiriis dadkii waabiye waaye diriraayay oo wadnaha cawaalo ku suray kuuna wada ooyay mar uun inay si waafiya u ladin waa la filayaaye gobonimo raggii weheshadee waranka tuuraayay waa duul walaal jecelintay duub wadaagaane waxyaha raggii soo jaro waaye sharaf qaatay weligood jihaday galan guuli kama weecan weligood jihaday galan guuli kama weecan laascaano waxa dhiiga qubin waa ibtilo weyne wanaagsana siciidina harto wiil jiraa tahaye qaranka baadoon waardiyeen waan u baqilaaye wadadii midnimadii lahayd waanadii guusha wadiiqadii midnimadii lahayd waanadii guusha oo raadinayseen waqin waad ku joogtaane astaantiinu wadanko dhabiyo waa wanaag astaantiinu wadanko midiyo waa wanaag dhaba ee waxtar baa dad yow lagu dhintaa laguna waaraaye ha ka weecanina maanta waad u heshan doontaane waayaha la joogiya haddana waan warwarayaaye waxa laaska waabayda dhigay waan ka murugoondhe wiilkeedii hooyada la wadhay waan ka murugoondhe inta wiirastiya gabar asay la huwiye wiiqle sokeeyuhu intuu wiil adkaa waaru tolay maanta waa geesiga ee Soomaali waqtigan isdilin waan ka murugoondhe isaaq iyo dhulbahanto waqcada waan ka murugoondhe walaalaha iswiiqiya dhibtaba waan ka murugoondhe war xun oo kasoo yeera sor waan ka murugoondhe haddaan waana weeye murtida weyda ka ilaasho nin walba waxyeelada jeclaa oon walwalin maalin aakhira markii loo wadee iilka lagu waabo adduunkii wuxuu soo falaa laga waraabshaaye war dulmigu wanaag kuma dhalo waana la hubaaye waana nabar aan kaa weecanayn waa dambe oo imane waana nabar aan kaa waabanayn waa dambe oo imane ka waantooba maantoo kalaa laga wareegaaye wabilaahi towfiiq ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam